halkan waxay noogu diyaarsan file la yiraahdo fp.html iyo index.html sooma fp gu wuxuu noo yahay feature bosses aynu soo gaabsanay iminka waxaan samaysan doonaa halkan lafteeda waxaan ku samaysan doonaa file kale la yiraahdo lb.html kaasoo taagan latest bosses waxaan ku qoran doonaa si marka ugu horeysa baan u aqoonsado h5 yar classkeedana waxaan ka dhigan doonaa in textigeedu yahay muujid qoraal qarsoon kadibna waxaan oran doonaa waxaad ciwaan nooga dhigtaa latest posts fariimihii ugu dambeeyay ee la qoray sheekh intaas quraataan ku qortay faylkii aan samaystay si aynu soo akhrisano waxaan tagi jirnay faylkeena indagaska gudaheena u galeynaa markaa halkan waxaan ka samaysan doonaa div kadibna waxaan oran doonaa classkeedu wuxuu noqon doonaa row sidoo kale waxa uu noqonayaa soo classkeedu doonaysa kaalay gurta way kaalay gurtada soo qaadmayna kaalay row bay oran doonaa kadibna rowgeena waxaan sheegi doonaa in ty xagga sare uu ka iman doono 4 ayaan oran doonaa sidoo kale waxaan oran doonaa haddaynu u baahano margin top xagga sare wuxuu ka soo goyi doonaa iyadana 5 inter bay leenahay classkeenu inoo diyaarsan sidoo kale waxaan leenahay waxaad noo samaysaa sheekh in columns haddii columnskaas yihiin large waxaad nooga dhigi doontaa in ay noogu fadhiyaan let's say 9 sidoo kale columnskayga waxay noqon doonaan qaar 12 okay columnskeena 12 bay ka dhignay halkan kalena 9 bay ka dhignay waxaan oran doonaa sidoo kale waxaan u baahanahay in margin top xagga sare wuxuu ka soo goyi doonaa 5 halkan waxaan raacin doonaa container mukan sare aha okay kadibna gudaha inuu guda gali doonaayo waxaan leenahay labadeeda dhiftayda faylkaygan wuxuu la shaqayn doonaa faylka kale ee loo yaqaano seen loo fayl isku xidhnay maxaan oranay include soo saamahay labada modular dhexdooda include bay leenahay wuxuu la shaqayn doonaa faylka loo yaqaano dotkan maxay ahayd talo halkan ay joogno taagna Soomaaliis okay waxaan markaa faylkii waxa ay soo helay lb.html faylkan ayaan noo soo helaysaa inaan save bay leenahay kadibna haddii halkan aynu ka baarno refresh niraahno halkan hoose waa inuu noogu soo biiro qoraal yar oo ah latest posts arkayna Soomaa okay mar haddaba wada shaqaynayaan labadii fayl isku xidhay mar hadday saa tahay waxaan leeyahay latest posts ka aan shaqadiisa gali doonaayo hr samee hr waxay ahayd horizontal okay refresh haddaan sameeyno xariijin yar baa leeynoo sameeyay arkayna Soomaa okay xariijintan meeshii oo dhan way qaadatay okay idinku malaha arkamaysaa okay sababtu wax kale ma aha oo background-nada Soomaa okay halkan kale waad ka arkaysaan iska socda marka muuqaalka daawanaysaa screen recording buu samaynayaa okay xariijintii meeshii geer wada gaadhay si aan u yar gooyo waxaan oran doonaa ty-4 iyo container lq9 iyo 12 mt-5 intaasaynu isticmaalnay baynu hubin doonaa indexkeena okay columnsku lg hadday yihiin waa 9 ty-4 container columnsku 12 mt-5 okay okay dhiftan maxaa dhiman tahay halka qaldan ma arkaysaa yes halka hadda waxa ka dhiman codeskii Soomaa
okay right kadibna dhiftaasi la shaqeynaysaa tan kalena tan ay la shaqeynaysaa taas save haddaan idhaahno hadda xogta refresh aan sameeyo xariijintu way noo gaabatay haddaan si aynu uga dhigano waxaan samayn karaa haddaan bacaaw loo baahay soo ma si xariijimaha loo arka de basekayga ayaa tegi doonaa line yaroo halkan oo bootstrap ahaa oo ku xidhnaaba jiray kan umaynu ka yar xidhi save bay leenahay haddaan refresh sameyno arkaynaa soo ma ciladu waa projectorka iyo muraayada xaggayga maaha kan sare waan arkaynaa laakiin soo ma xariijinta halkana xariijintii oo kale inoo taala hoose waxay soo noqotay markaa maadaama inaan waxba arkayn isku kay mid noqotay waxaan leenahay u baahanahay mar haddaad latest postiski noo soo bandhigtay shaqada kale noo qabanaysaa waxay tahay waxaad noo samayn doontaa aynu u gudbaynaa in laynoo sameeyo wax loo yaqaano for loop noo samee kadibna waxaad wax nooga soo akhriyi doontaa variable la yidhaahdo post ayaad wax nooga soo akhriyi doontaa si aynu xogtan u samaysano waxaan tegi jirnay qaybteena viewska soo saamahe si aynu variable database wax ka keenaya u samayno viewskan tegi jirnay kadibna halkan waxaan leeyahay waxaad ii samaysaa variable yaroo la yidhaahdo post kaasoo la mid ah postiga weyn wixii laga soo helo dot objectska ku guda jira in order loo habeeyo maxay order by id baa soo ma waxaad nooga habeyn doontaa bay leenahay minus id sida soo kala horeeyaan kadibna halkan waxaynu ku sheegan doonaa variable-kayn doonayno in aynu wax ka soo qabaan waxaan odhan doonaa post wuxuu la mid yahay bay leenahay post save bay leenahay kadibna waxaan gudageli doonaa faylkaygii lb-da kadibna waxaan leeyahay waxaad ii samaysaa horta for loop sidanaynu isticmaalnay Django for bayn leenahay kadibna waxaan leeyahay postiga waxa ku jira waxaad igu shubi doontaa variable kale oo la yiraahdo post kadibna forteena si aanu xidhno maxaynu odhanaynaa and4 bayn leenahay forteeda noo xidh saasay for loop teeni inoogu xidhan tahay kadibna waxaan leenahay hadda waxaan u baahanahay sheekh in loo sameeyo class card noo samee kadibna bottomkiisa wuxuu ka kici doonaa 3 card baan leeyahay class-ka uu card buu noqon doonaa sidoo kale waxa uu qaadan doonaa mb-3 sidoo kale waxaan leenahay mar haddaad class noo samaysay card la yiraahdo waxaad noo samaysaa isagana class la yiraahdo row kaasi oo ka kici doona g-diisa 0 sidoo kale waxaan leenahay waxaad noo samaysaa column wuxuuna noogu fadhiisan doonaa maxay md hadduu yahay 4 ayuu sawirku noogu fadhiisan doonaa sawir si aynu soo gelino imt ma isticmaalayso ma kadibna halkan aynu gelinay sawirkeena halkeeda ay nooga soo helayo waxa laga soo heli doonaa postiga marka la galo variable-ka la yiraahdo image ama table-ka shayga la yiraahdo image column-ka inoogu jira ayaa la soo heli doonaa halkan class baynu samayn doonaa waxaan leenahay waxaad nooga dhigtaa card image sawirkii cardka nooga dhig intan haddaynu refresh ku samayno xog bay noo soo korodhay xariijinta yare madoween raadinayay taayir cadaan saasaaso ma kaarkii wuu yar madoobaaday isaga ma arkaysaan si isaga xoogaa dhisay kuwa ka bedeli karnaa waynu maamuli karnaa waxaan odhan karnaa bg waxaad nooga dhigtaa primary oo kale si aynu iskula aragno primary muxuu ahaa blue soo ma oo isku ekaadeen soo ma so make it light markaa inooga dhiga light bayn ka dhigan si uu geer duwanaado arkaynaa soo ma cardisku waa dhisaynada yare sidan u kala go-an ayaa la yidhaahdaa postiska dambe maxaynu ku aragnaa xitaa facebooka whatsappka qof kasta chatkiisa wuxuu xidhaa card yar ayuu xidhaa marka dhisaynada yare saasa cardis baa la yidhaahdaa hadda imagekii buu noo keenay mar hadduu sawirkii noo keenay waxaan leenahay waxaan u baahanay sidoo kale in aad noo keento iyadana class kale samaysan doonaa
waxaan oran doonaa 8 ha ku fadhiisto maadaama ka sare 4 ku fadhiyay 8 ku fadhiiso kadibna waxaan leenahay card body noo samee spam baynu isticmaal doonaa waxaan leenahay post category-ga noo soo hel okay dhiftan aan banaanka uga baxo dhif kala samaysan doonaa columns ku fadhiisan doonaa baan leeyahay haddii MD ay tahay ama media device ay tahay waxay noqonaysaa 8 bay noqon kadibna waxaan leenahay waxaad noo samaysaa class kale oo la yiraahdo card body qaybta hoose cardka noo samee kadibna span yar baynu isticmaalnaa span waxaanu isticmaalnaa class yar oo la yiraahdo tag bay leenahay kadibna waxaad noo soo helaysaa bay leenahay postigayaga category-giisi cidu ka tirsanaa noo soo hel yes kadibna validation baynu ku sameynaynayo upper ka dhig bay leenahay wixii soo baxaa xarfo waaweyn nooga dhig sheekh intaan haddaynu refresh sameyno waxay noo soo baxay halkan sare news iyo news category-ga iyo category-ga policy iyo category-ga technology soo sama okay mar hadduu intaan noo soo helay waxaan leenahay waxaan u baahanahay h5 yar oo noo haysa card title sidoo kale anchor tag yar oo iyadana noo haysa card link title oo noo soo hesha post title okay success okay wait aan idhaahno xogtan sina loogu soo helo okay h5 baan u yeeran doonaa card title haysa wariga gudihiisa ka bixi maayo okay h5 baan leeyahay kadibna classkeeda waxaad ka dhigtaa card title okay anchor tag baan isticmaal doonaa oo aya kadibna class baan samayn doonaa classkeeda waxaan leenahay waxaad nooga dhigtaa card link title okay classkan waa class bootstrap oo gudaha bootstrap inooga iman doona kadibna waxaan leenahay waxaad noo heli doontaa post dot maxay title bay postigeenu lahayd soma sidoo kale upper baan ka dhigan karnaa isagana haddaynu u baahano laakiin waxba raacin mayna upper waxaan leenahay post title-ka noo soo hel refresh haddaynu sameyno okay title-kii muu soo helin waa uu soo helay laakiin maxaa dhacay meesha green noqotay soma okay another kale ii sheega yeah let's Lego okay okay marka dhaagayga wax kaga qurux badan ma jiro sanadii kirmin ma xaqii numidan ka arkeen halkan si fiican bay uga muuqataa ka soo ka shaqadeeda wadana okay enter yeah madawgiis waa loogu qaatay soma okay madawgiisa ha ahaado border kan xariijin yar u sameyno okay talo borderka see loo isticmaali jiray yeah borderka talo see loo isticmaali jiray okay solid coverage it is just CSS so anyway okay idinkaas ka qorxin doona aan iskaga socdaano card title-kii baan haystaa post title-kii inoo yimid soma
marka hadda waxaan haynaa category-gu ka tirsanaa iyo post-ga title-kiisa soo saama maxay naga dhiman contact-giisa soo ma xogtii la keenay paragraph yar bay isticmaal doonaa card text bay leenahay kadibna post content noo soo hel bay leenahay paragraph yar baan isticmaalay kadibna class-keeda waxaan ka dhigayaa in ay tahay card text qoraalkii card-ka kadibna waxaan leenahay waxaad noo soo heli doonaa taa post-geega markaan joogno content-geeda xogteeda content yes okay kadibna validation yar bay raacin jirnay maxaan oran jirnay truncate words noo koob kelmadahayga 20 ma noogu koob baan nidhi kadibna haddaynu eegno refresh samayno soo baxay soo ma kadibna waxaan leenahay mar truncate words-ka haddaad noo samayso kelmadihii noo heshay xogtan in ka badan qofku hadduu u baahdo inuu akhriyo muxuu isticmaalayaa waxaan leenahay anchor tag yar noogu yeedh kadibna waxaad tidhaahdaa qofka read more intaa in ka badan akhri ayay leenahay safay leenahay refresh haddaynu samayno waxay noo soo biirtay read more soo sama mar haddii intaasi noo martay waxay leenahay hadda laba shaqo naga dhiman oo labada shaqo waxay tahay waxaan u baahannahay creative baynu heli jirnay soo ma hadda postigan xilli ma la qoray soo saar ma ahayn postigan xilligii la qoray haddaynu u baahannahay iyadana waxaan isticmaalnaa bay leenahay paragraph yar class-kiisana waxaad nooga dhigtaa card text sidoo kale text-giisa waxaad nooga dhigtaa mid muujira oo khafiifa waxaana noo soo heli doontaa creative post created senu validation ugu sameeyna maxaan isticmaali jirnay time series soo saamahayn ago baan raacin doonaa oo ah ka hor u taagan refresh haddaan sameyno maxaa laynagu soo daray cilad baa dhacday maxaa jira midh baa maqan soo maha qoysaskiida refresh haddaynu idhaahno maxaa la yidhi 6 cisho ka hor 23 saacadood macnaheed 24 saacadood hadday noqoto maxay noqonaysaa 7 cisho ka hor soo ma laakiin weli saacad baa ka dhimantay soo sama marka xilligii soo qornay ayuu sheegaya soo soconays soo soco okay card text bay leenahay minus baa ka dhiman iyadana hadda xogteeni waan wada haynaa soo saama waxaan soo kordhin doonaa badhada yar yar oo sameynaya in shayga aynu edit garayn karno ama aynu delete garayn karno soo saama xog haddaynu qorno waxaa loo baahan in xogtii la masixi karo ama se wax laga bedeli karo si aynu intan u sameyno waxaan isticmaali doonaa buttons yaryar ama calaamado yaryar baan isticmaali doonaa laakiin taanan calaamadaha isticmaalin aan idhaahdo waxaad ii soo daartaa anchor tag yar igu yeedh anchor tag-gaygana aan u yeedhanayo waxaa igu jiri doona isagana class yar oo btn success ah kadibna waxaan u sheegi doonaa waxa uu qabanayo waxaan leenahay waxaad noogu yeedhaa anchor tag waxaan ka furan doonaa gudaha halkan anchor tag paragraph gudihiisaan ku furan doonaa anchor tag yar baan leeyahay class baad u samayn doontaa class-kiisu wuxuu noqon doonaa button-kani wuxuu noqon doonaa mid xariijima ku wareejisan yihiin oo xariijimaha ku wareejisanna waxay noqonayaan success screen baa soo ma badhada waxaad noogu bixisaa bay leenahay edit control s si aan u koobiyeysto waxaan taaban karaa shift iyo alta kadibna hoos baan u jiidaa shift iyo alta iyo arrowga hoose haddayn taabto copy buu shaygii ka sameeyaa waxaan leeyahay kan waxaad ka dhigtaa maxay delete masax sheekh casaan baynu isticmaalaa soo maadee masaxaadu laba khatare danger baan leeyahay markaa step haddaan idhaahdo aynu tagno meesheenii maxay noo soo baxay edit iyo
delete soo sama okay right badhadahan hadda inooma shaqaynayaan laakiin feature ahaan way noo joogaan soo sama right mar haddii noo joogaan edit iyo delete waxaan leenahay waxaan u baahannahay icons yar baa la isticmaalaa soo ma icon kiisa loo heli karaa taw icon calaamad yar baan u baahanay right waxaan isticmaali doonaa ku soo xidhan doonaa si okay font awsam ma yareegi doonaa sidaan ugu xidhanno iyo shaqadeeda okay right halkan google ka iska geli doonaa halkan xariifa lagu yisama font awsam baan oran doonaa cdn font awsam cdn baan oran doonaa linkiga ugu horeeya soo maxaan geli doonaa kadibna okay font awsam buu soo saaray soma linkiga ugu horeeya geli sheekh kadibna halkan linkiyadan way si kan ugu horeeya ayaan tag qaadan copy link tag soo arkaysaa soo copy baan oran doonaa bootstrapteena halkan ku soo darnay soo ma xasuusano it was pasted soo saameen linkigi bootstrap halkan ku xidhnay markii page-kan ku xidhnay soo saameen page-kan geli doonaa halkan aan iman doonaa waa page-kan halkan aan ku copy markaa copy maadaama ay ahayd control v baan oran haddaan reebano ka sheekh cdn kaasan keensaday save baan oran doonaa cdn kan wuxuu bedelayaa in calaamado yar yar uu inoo soo kordhiyo ayuu ga saacidi doonaa halkan maxay noogu qornaa delete soma ay calaamadii delete kan raacinaya ay tag yar baan samaystay class baan u samaystay classkeeda waxaan leeyahay fa fab kadibna waxaad ii soo heli doontaa shayga loo yaqaano trash masxaadu trash bay ahayd ya xay ku beegata sabuurada meel jooga kaga beegata soma okay caadi bid male okay wait let's see fa bay noqon doonaa fa kale kadibna trash bay leena masax arkana soma fa bay leenahay kadibna trash samee masax haddaan intaan save gareeyo okay kii kale ha ka maqnaatabe refresh ay sameeyno hal soo kordhiyo box kira soma xashiishka right kan kale waxa la yiraahdaa isaga taro waxa la isticmaalaa ayka bende soo sama yes right class bay leenahay kadibna waxaan leenahay fa waxaad nooga dhigtaa isagana ben bay leenahay qalin save haddaan idhaahno isagana haddaan refresh sameeyo waxa ka horeeya qaliyar soma kana sanduuq saladi okay wait intaasi ku dhantay waxay samaysanay latest post soo sama wait dib baa jirto xaggeena sar uu dhameystinay yahay laakiin dhinacan maxaa dhiman qayb baa dhimantay soma side kan dhiman way nagu fool xumaanaya haddii website-keena saa kaga tagno side kan haddii aan saa ha u banaanaado hadhowdii waxa la iska kaawanaya nin maxaad qaybta u banaysay miyaad garan weyday dadkuuna shaashada ku fadhiisay soo sama qaybta waxaan ugu talagalnay meel leenahay in side ahaan ay noogu shaqeyso iyadoo waxaan u isticmaali doonaa kaliya html code kaliya okay wait html code ko it was easy baan filay okay kuwan baan iskaga bixi doonaa labadan banaankooda niman tegi doonaa dhifta ugu dambaysa halkaasaan istaagi kadibna waxaan oran doonaa waxaan u baahanahay sheekh qaybtan hoose ay qaybtan sidebar baan u baahanahay inaan isticmaalo sidebar seen isticmaalo tar waxaan sameyn karnaa okay fail baan sameysan la yiraahdo site.html meesha ligdeeni ma ku sameysan site.html ayaan oran doonaa ay site-ka si aan ugu xidhno isagana dhif yar aynu sameyno h5 yar aan sameysto class-keedana aan ka dhigo mid text-geedu yahay mujid mid yar oo la khafiifiyay kadibna aan idhaahdo waxaad noogu bixisaa meet out
out waxaad la kulantaa qoraaga soo saama way HR yar baan raacin doonaa save haddaynu idhaahno seen ugu soo xidhno maxaynu odhanaa isagana waa inaan indhagaskaygii tago sooma way indhagaskaygii markaan tago shaqadii horun baan maraya dhiftan baan ka bixi doonaa halka waxaan odhan doonaa waxaad noo samaysaa dhif kale dhiftan gudaheeda class baad noogu samayn doontaa kii hore muxuu ku fadhiyey no 9 buu ku fadhiyey soo saama kan hore 9 buu ku fadhiyey sooma 9 maxaa hadhay 12 keeni 3 bay noo hadhay sooma 3 ku fadhiisaan leey dhinac yar ay banaana markaa side kale ay noo banaana waa 3 maadaama kii hore 9 qaatay inta ay noo banaanay waa 3 ay noqonaysaa kadibna waxaan leenahay columnska caadiga 12 bay ahaan defaultska margin tab xagga sarena 5 ha ka soo durko sideena caadiga ahayd kadibna enter bay noqon doonaa seen file ugu soo xidhno waxaan leenahay include file-kan wuxuu la shaqeyn doonaa file-kayga kale ee la yiraahdo maxay site soo saama intan haddaan save gareeyo refresh noodhaha I think refresh waxaan ugu soo korray meet soo saama weli ismay sooma space kira aynu doonaynay winaga buuxiyay qaybtan koodhkeedan isticmaalaya waa HTML kaliya marka HTML waxa weeyaan isku dhibay waliba soo la isku dhibaya mar haddayna ku jirin midba hashi card bay samaysanay kadibna image baa soo heli doonaa sawirka soo loo soo heliyay inaan idin tusi kadibna waxaan oran doonaa inta ay soo qaad simple waqti badan inay naga cunto ma rabo qaar meesha ku hayo weydiinaysaa intaasaan koobiyeysan oo iska HTML kaliya halkan markaan idinku qoraad arki doontaan site-ka gudihiisa waa kan soo maha HR-ka dibadiisa intaan aan dhigtay let me aynu eegno markaa maxaynu samaysanay class la yiraahdo card soo maha kadibna maxaan ku samaystay gudihiisa image soo helbaan idhi soo maha kadibna maxaan idhi classka image waa maxay card image top sawirka xagga sare la dhigi doonaa sidoo kale maxaa laga dhigayaa rounded mid goobaad soo saamaha sidoo kale waxaan leenahay waxaad noo samaysaa card la yiraahdo card body sidoo kale waxaan leenahay card textiga waxaad ka dhigtaa mid dhinacyada ka soo go'ayo x times 2 noo isticmaal oo small lorem noo garanaa Soomaa oo qoraal yar oo saambala ama qoraalkaaga qoran doona markaa sidoo kale halkan hoose link yar baad igu samayn doontaa classkiisana waxaad iga dhigi doontaa BTS secondary waxaad iga dhigi doontaa rounded large kadibna waxaad oran doontaa len more soo saama waxaa option aan raacin karnaa card body mar haddaan nidhi waxaan isticmaali karaa h5 yar oo odhan karo tusaale ahaan oo kale card title class card title si qofka magaciisa kale tusaale ahaan aynu soo saarno make it aan idhaahdo markaa hadraawi oo kale maamusno ahunta way naqaanaa soo ma alla naxariisto intaasaynu odhan doonaa kadibna halkana sawir baa soo eegi xaajigu lahaa aan galo Google baan tegi doonaa sawirkiisa soo tuuray soo ma images baan geli doonaa kan baan soo qaato waan ku dhufan doonaa sawirku soo baxay soo ma dushiisa istaagnaa right click options fara badan baa inoo soo baxa kadibna waxaan dooran doonaa optionka la yiraahdo copy image address copy baan nidhi waxaan doonayaa shay internetka yaala inaan soo qaato halkan src-ga gudaheeda baynu ku baasti karaynaa arkaysaa soo ma save ay leenahay os project-geeni refresh ku samayna markaa arkayna soo ma sawirkii yaraa share kala qoraalkii
okay shaashadeena noo ka arkayna soo marka xogta yareyd aynu qori doonaa hoosta halkan maxay noogu yaalaa len more sawirka circle-kiisa waxa sidaan ka yar dhigay sawirka yar oo kaliya way soo ma sawir kale haduu yahay oo ka weyn aan heli karnaa ka use like kana kale uu balaaran yahay aan isticmaali karnaa 720 cabiradan xoogaa way baran doontaa arkaysan soma circle-kan wiil weynaada soma mar hadday intan tahay waxaan u baahanahay isticmaalaya oo kala haray social media iconiste inaan ku xidho tusaale ahaan kale pages-ka leenahay oo dhan in aan ku xidhno tusaama si aan ugu xidhno iyagana waxaan isticmaali doonaa wax koodh kale uma baahnin in yaro bootstrap aynu isticmaali doonaa iyo html class yaro kale baan samaystay empty maxay ahayd margin top sama xagga sare ka soo go'shan kadibna waxaan oran doonaa textigiisa muutir ka dhig kadibna waxaad nooga dhigtaa meel leenahay social media ayaad ciwaan nooga dhigi doontaa paragraph yar baynu yeelan doonaa kadibna waxaan leenahay button group noo samee kadibna waxaad noo samaysaa waxaad noo soo heshaa calaamadda facebooka waxaad noo soo heshaa calaamadda instagramka waxaad noo soo heshaa calaamadda twitterka waxaad noo soo heshaa calaamadda googleka waxaad noo soo heshaa ta linka okay intan aan ka gaarsiin nabadda okay dhifta dabadeedu ma tagi doonaa halkii ugu dambeysay halkan ka xidhantay halkaas ka xidhantay Soma soo sama waxaan oran doonaa class-kan kale soo socda empty xagga sare muxuu soo go'aya shan soo sama kadibna maxaan u baahanay maniri h5 yar inoo haysa ciwaankeena oo ah in textigiisu yahay muted mid khafiifa kadibna waxay noo hayn doontaa social media kadibna waxaan leenahay hr haddaynu sameynayno optional haddaynu ka teginayno waa optional paragraph yar baan isticmaali doonaa gudihiisa waxaan ku samaysan doonaa dhif yar oo leeyahay waxa weeye button group btn group baa jira waxa la yidhaha haddaynu soo taqaaneen button groupkaygan wuxuu iga koobnaan doonaa waan leeyahay linkyo yaryar kadibna gudaheeda waxaan ku qoran doonaa itag yar itag yar baan ku qoran doonaa idan yar class baan u samayn doonaa sideedii caadiga ahayd waxaan odhan doonaa fab fa kadibna fab facebook sef haddaynu idhaahno face baan ka maqan soo sef haddaynu idhaahno hadda refresh haddaynu idhaahno barinooyaga social media way noo soo baxday laakiin maxay naga maqan facebook soma tinkin waxaan filayaa fabka kala horeeya fab that's all refresh haddaynu samayno maxay noo soo baxay calaamad yareede facebook si u yar kala durkaan inta badan waxaan isticmaalnaa class yar oo la yidhaahdo margin waa ka kala durug soo mahayn saddex an kala durkaan mayn leenahay intan uma copy ka samaysan tahay sheekh yes kan muxuu inoo hayaa facebook soma waxaan leeyahay twitter kan kale wuxuu ii keenayaa instagram kan kale wuxuu ii keenayaa tusaale ahaan oo kale google plus intan haddaan save gareeyo refreshna aan ku sameyno halkan iconiskeenii
kuwa soo saama si loogu xidho maxay samayn karaa hadaan doonay meesha Facebook lagu xidho ama Twitter-kayga ku xidho waxay oo dhan ku xidhade simple de Facebook linkigayga ma galaya Facebook marka saan u galo xogteeda halkan igu jirtaan copy oo dhan kadibna waxaan tagi doonaa code-kayga halkan yar href ka soo markan halkan ma dhex dhiganaa sheekh marka everything waxa oo dhan ku xidhan kartaa WhatsApp-kaaga Twitter-kaaga waxaad akoon leedahay oo dhan halkan aad ka soo gelinaysaa sheekh refresh hadday sameeyna hadda okay Facebook hadaan taabto Facebook wigi soma marka akoonnadeena oo dhan waynu ku xidhan karnaa waxaan raacinaynaa kama dambays caawa hadalna category-ga categories-ka ayaan iyagana doonayaa in la soo bandhigo halkeedii dambe la igu soo bandhigi doonaa dhif yar baan samayn doonaa class margin top xagga sare shan buu ka goyi doonaa markasta waynu yar kala dukaan baynu u baahanay tegastigiisana muujir baan ka dhigan doonaa waxaad noo soo helaysana waxaan leenahay categories hanoo ahaada soo saama keenan aynu ku jirno still site-kii baan ku jirnaa dhifta dabadeedaan tegi doonaa waxaan odhan doonaa waxaad noo samayn doontaa margin top maxay ahayd xagga sare ka soo go shan soo saama ahayn kadibna waxaan leenahay h5 yar noo samee tegastigeedana waxaad nooga dhigtaa mid maxay muujira oo qarsoon waxaana noo tiraahdaa categories nade waxaana noogu soo daraysaa hr yar oo ahayd horizontal roller haddaan refresh samayno waxay nagu soo biiray category soma mar haddii categories nagu soo biireen hadda waxaynu baahanay in category-yadeeni laynoo soo taxo soma si laynoogu soo taxo shaqo badan qaban mayna iyada lafteeda paragraph yar baan samaysan doonaa us tolo maxay ahayd unorder list unorder list baan samaysan doonaa classkeedana waxaan ka dhigan doonaa in tahay list group kadibna for baan gelin doonaa inta fiiskayga soo geliyo variable yar oo la yidhaha category oo category-ga wax ka soo akhriyaya kadibna waxaan leeyahay li yar ii samee maxay ahayd list item soo saamahayn classkeedana waxaan ka dhigan doonaa list group item in shayada uu inoo taxo sidoo kale waxaan ka dhigan doonaa display-geeda flags sidoo kale justify content between baan ka dhigan doonaa sidoo kale waxaan odhan doonaa align items center shayada center ka dhig kadibna waxaan u yeedhayaa symbol category name case-kiisana waxaad ka dhigtaa meel leenahay upper then 4 may dhamaynayna iska fududayso ma symbol paragraph leenahay paragraph-keena waxaad noogu samaysaa in la yidhaha unorder list class-keedana waxaad nooga dhigaysaa in la yidhaahdo list group baad nooga dhigi doontaa gudihiisa markaad soo gasho hadda waxaad noo samayn doontaa for loop yar for category baan leeyahay markaa variable aan soo samaysan doono in category ayaad noogu shubi doontaa for-ka seen u dhamayna maxaynu odhanayna and waxaan tegaynaa markaa dee viewskeeni soo saamaha ile category nooma abuurnee waa in halkan markaa aan idhaahdo waxaad ii samaysaa variable la idhaahdo category wuxuuna wax ka soo akhrisan doonaa faylkaygii hore modeliska ku samaystay la odhan jiray category objectiska ku guda jiru inoo heli doonaa kadibna wuxuu samayn doonaa order buu samayn doonaa uu soo kala horreysiin doonaa isagoo isticmaalaya maxay id marka id-ga waxba uguma baahni minus sida u kala horeeyaan waxba uguma baahni in wixii category noo jiraba lasoo bandhigo ayaynu u baahanay halkanna waxaan tegi doonaa comaan odhan doonaa markastoon doonayo in aan samaysto dictionary waxaan leeyahay waxaad ii samaystaa category waxaanad iigu shubtaa in category-gaygan uu ku jiro category inta badan save baan ka dhiganayaa variable-ada si ayna hadhow toole waxba isku khilaafin waxa laga yaabaa haddaad kan categories ka dhigato ood halkan hadhow toole yar khalado in error yar yimaado marka save baynu ka dhiganaa maadaama isku macno taagan yihiin category save bay leenahay mar haddaad noo save garaysa bay leenahay nagee sirkeeni xogta category-ga laga keenaya soo ma
si loo keeno maxaynu isticmaalay list item soo saameen class-kiisa maxaan ka dhignay horta halkan ku soo bandhigaaba de si aynu u aragno waxaan waxay kordhinayso bootstrap-ka qurxinaysa waxaan leenahay category markaan joogno waxaad samaysaa dot waxaad noo soo heli doontaa category name buu lahaa soo ma category dot name-keedii noo soo hel waxaana nooga dhigtaa maxay upper mid waaweyn save aan idhaahno refresh haddaan samayno maxaa la soo helay category-yadii soo maha laakiin de waa foolxun soo san maha si aynu xalino baynu halkan isticmaalnaa yaro bootstrap-da sheekh waxalun iyado marka waxaan leenahay waxaad nooga dhigaysaa glasskeeda ay wax nooga iman doonaan list group item yes intaan oo quraata haddaan save gareeyo dan isbedelka kolba ay dareennay maxaa la sameeyey box baa la geliyay markii horeba soo maha box yar bay ku jiraan ma arkaysaan laakiin space yar bay geliyey box yaroo cadna uu geliyey ay noogu jiraan kadibna waxaan leenahay mar haddaad san noo samaysay waxaad noo samaysaa displaygooda sida u muuqanayaan waxaad nooga dhigtaa siday u taxan yihiin flags kadibna save haddaynu idhaahno sidoo kale waxaan leenahay waxaad noo samaysaa justify contentigooda waxaad ka dhigtaa between justify contentigooda waxaan ka dhigtaa way leenahay between sidoo kale waxaan leenahay align items center soo saamahayn save bay leenahay intan ayaynu isticmaali refresh haddaynu idhaahno sidaasay noogu taagantay markaa intaas waa iska dhanta soo maa iska fuuday shaqadaynu qabanay intaa wey hadda bloggeeni mid macquul u soo eegi soo ma bloggeeni hadda mid macquul u soo eegi wuxuu leeyahay meeshii featured posts sidoo kale wuxuu leeyahay latest posts sidoo kale wuxuu leeyahay outerkeeni ciday meesha wax ku qoraysay sidoo kale wuxuu leeyahay social media iconskeeni sidoo kale waxaan halkan laga heli karayaa categorieska topigyada aan ka hadalnay wax ka qornay ayay iyagana la heli karayaa soo saamaha laakiin dib baa jiro shaqadeen qaban doonee assignment waxay noqon doontaa postskan imika haddaan tiriyo oo taxo way sii dheeraanaysaa meesha soo ma ilaa 100 post hadday aynu qornay jaacad 100 post qortay 100kii post hoos bay soconayaan xog dheer bay noqonaysaa marka waxaan u baahanahay in 4 post la soo dhigo 4 post wixii ka dambeeya in numbers laynoo sameeyo oo laynagu dhaha page 1 afartana ku jira page 2 gudub page 3 gudub page 4 gudub kadibna xogta sidaa loo gudbi karo marka shaqada paginations baa la oran jiray idinka baari oo soo sameyn doona paginations indichanko baad oran kartaa marka design-ka bootstrap laga keenaa paginations-ka way soo qaban doontaa shaqadooda sidoo kale assignment-keenu waxa weeye in account-isku ay shaqeeyaan login-kii iyo logout-kii inay shaqeeyaan ayaa iyadana loo baahan yahay oo shaqadaana idinkaa qabanaya marka caawa Saturday soo ma next Saturday niyo mushkilad baa jirta intaas ay nagu filan حد وي امتحان كينو marka sabtida insha Allah project keenaysa markiskiisuna 20 markis buu noqon waxa la soo sameeynaya login-ka inuu shaqeeyo iyo paginations adanta soma laba midho ma darin dib تمام لوجين يلا قط هذا شقيا account اسمه لا marka kulleey marka dibadda joogtaa waad ka yar baqan saan waxa sidii ma la qoor gareynaya laakiin simple way installation wax yar kood qoraysa laakiin installation ma la sameeynaya
Django automatic way u leedahay waxaan oo dhan project si inuu samaysanay qaybta admin ka inuu sameeyno soo ma symbol waa sidii oo kale wax badan lama marayo markaad baarnaan wad helaysaa accounts-ka iyo pagination-ka labadaba way inoo soo sameyn doontaa markii isku tooni waxay dhacaysaa sabtida dambe marka habeenka waan imanayaa insha Allah inta wixii ka dambeeyay excuse me jiro okay marka intaan sameeynay waxyaabaha kale idinka sameyn doona si qurxin doona